adduunyadu waa imtixaan aadamiga la dul keenay waa dhibaato iyo ciriiri qofkana nolosha ayuu nacaa qofka islaamka iimaan ayuu kaashadaa halka iimaanlaawuhuna ugu dambayna uu isdilo jacaylku waa cudur aad u dhib badan isla markaana qofka ka dhigaya maqana jooge mararka qaarna ay suurtagal tahay in uu naafeeyo maskaxdiisii qaaliga ahayd isla markaana uu noqdo sidii duurjoogta oo kale ma ogtahay farxadaha shacabku ay isweydaarsanayaan iyo fantastiyada kala duwan ee ka dhacaya dunida dacaladeeda hadduu jacaylku daashado in aad ka noqonayso ruux aan niyad u hayn isla markaana ka ah maqana jooge ubaxa la isweydaarsanayo bololayrka dhacaya hilaaca quruxda badan ee ifinaya samada waxa uu xaggaaga ka noqonayaa bohol weyn oo holaca ka baxayo iyo meel naftu aysan ogolayn in lagu sii nagaado way fududahay in noloshaada aad lamaane u raadsato isla markaana aad wadaagtaan jacayl waa macquul in afkaagu ku dhawaaqista ereyga jacayl uu aad ula fudud yahay hase yeeshee markii uu laabta kaa galo damqashada jacaylkana aad la dhaqaaqi weydo cunno iyo cabitaanna aad ka go'do waa hubaal in aad isweydiin doonto jacaylyahow kumaa tahay dad baa dhadhamiya jacayl damacoodii khasaaray ruux caawiyana ausan jirin ruux baa daalanoo qofkii damaco uu ka galay dantiisii dib u dhigtay danaheeda ka oofsatay ma og tahay fu'aad tan iyo markii ay dhimatay gacalisadiisii layla noloshiisa waxa ay noqotay mid ku jirta baadigoob hawo aan waxba ka jirin waa macquul in aad naftaada ka dhaadhici weydo qisadan fu'aad ku dhacday in ay tahay qiso dhab ah waayo taariikhda jacaylka ee bagga soomaalida muddooyinkii ugu dambeeya laguma arag ruux daacada oo naftiisa u hura qofkii uu jeclaa isla markaana doontu ay la gadoonto sidaasi darteed waxa aynu milicsanaynaa isla markaana aynu ku soo bandhigi doonnaa halkan xaaladda rasmiga ah ee fu'aatan iyo dhimashadii layla iyo sida ay noloshiisu iminka ay tahay raja miyuu leeyahay fu'aad suurtagal ma tahay in uu mustaqbal raadsado wakhtigan haddii aad jacayl ama xiriir aad uga sheekayso fu'aad noloshiisu sidee bay isku beddelaysaa allah mar qura haddii aad aragto adigaaba runta dareemaya adigaa xaalad walba la socon karaya sidaasi darteed jacayl markii uu maqlo fu'aad noloshiisa waxay istusinaysaa erayadan oo kale jacaylku horor yahay hoota iyo waran yahay dhibashada ku daran yahay jacaylku horor yahay hoota iyo waran yahay dhibashada ku daran yahay hoygaygi joogoon melalayga haynbaan urdo seexan waaya allah waa hubaal qof walba oo jacaylka wax ka yaqaana in uu aad u fahmi karayo ereyada murugada badan isla markaana guuldarrada jacaylka laga dhadhaminayo uu qalbiga fu'aad saacad walba uu ku hayo isla markaana uu ka aaminsan yahay jacaylka waxa uu leeyahay jacaylku waa cadow seeftiisu ay bannaanka taallo ma diirnaxo naxariisna way ka guurtay ma u diirnaxo qofka noocu walba uu yahay waxaana la kulma marxaladda noocaasi oo kale ah nasiib laawe anigoo kalaa sidaasi waxaa aaminsan fu'aad oo la kulmay qisa aad u xanuun badan oo ka soo wajahday gabar noloshiisii uga baxday ballanguur ay wada lahaayeen wuu ku hanti beelay naftiisana waxay ka dhigtay maqana jooge aan wax la qaybsan karin asaagiisa horaa loo yiri wixii kugu dhici lahaa 1,000 sane ayay kaa weyn yihiin wax walboo ku soo wajaha haddaad tahay qof muslimana waxaa wanaagsan inaad ilaahay ku shukriso ilaah baa shalay hanti ku siiyey maantana kaa qaadin kara waxaa macquula nolosha qaraar haddaad la kulantay in aad mid wanaagsan la kulmi karto sidaasi darteed fu'aad ilaah buu ku shukriyey dhibkii soo gaaray wuuna iska cafiyey gabadhii dhaawacaasii u geysatay wuxuuna u diyaar garoobay in uu mustaqbal uu samaysto haddaba haddii damiirtaadu ay shaqaynayso qalbigaagana uu diirnaxayo oo aad tahay gabar diyaar u ah guur xalaala iyo weliba in aad la qaybsato dhibaatada fu'aad uu soo maray waxaynu si naxariisle ugu bandhigaynaa gabdhaha soomaaliyeed ee asluubta iyo anshaxa iyo diintaba ku wanaagsan ee ku nool dunida dacaladeeda in uu fu'aad guurdoon uu yahay isla markaana uu soo dhowaynayo gabar walboo diyaar u ah guur xalaala oo lagu lifaaqay jacayl isla markaana daneynaysa in ay fu'aad nolol la wadaagto la soco fu'aad waa wiil aad jacaylka wax uga yaqaana aad u ixtiraam badan diinta si wanaagsan u yaqaana dhallinyaro ah
horeyna aanan u soo guursan weliba dhaawacan markii uu soo gaaray fu'aad kadib wuxuu noqday mid aad u taxadar badan oo aan marnaba ku fududaanaynin in uu kala gooyo xiriir jacayl iska badaa mustaqbal in uu burburiyo sidoo kale fu'aad wiilasha saaxiibka la ah waxay kala yaabeen qaabka oo u ixtiraamo haweenka Soomaaliyeed isagoo aad u necab in wax la gaarsiiyo gabar Soomaaliyeed waxa uuna ku leeyahay gabari waa hooyo iyada ayaana dhashay wayna la dhalatay waana u dhixi doonaa tilmaamahaasi ayay dhalinyarada saaxiibadii la ah waxay ku tilmaameen in uu yahay geesi tulwaayay isla markaana garab u baahan miskiin ilaah baa u maqan Get you